معلمك وحناهاي وهديك دكسيدا وحناهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا برنامجka waxbarashada galmudug TV isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa iskuulka caalamiga ah ee Muqdisho City College oo ah iskuul ay wax ka dhigaan macallimiin ajnabi ah isla markaasna ka soo jeeda dalkaasi Kenya horreynba waxaan wareysan doonaa qaar ka mid ah ardayda Muqdisho City College oo ka warbixinaya qaabka ay wax u bartaan oo kuwan hadaba ardayda oo ka warbixinaya magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh waxaan ka tirsanahay ardayda college-ka Muqdisho City College ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan iskuulka waxaan ka baranaa luqadda Englishka dabcan iskuulka wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan wuxuu ahay qayb oo full ah annaga marka waxaan nahay part time waxaan dhiganaa khamiis iyo jimce waxaan baranaa luqadda Englishka bal ka waran macallimiinta wax noo dhigtaahay waxa weeye waa macallimiin ajaanib ah aad iyo aad aan ugu qanacsanahay sababtoo ah pronunciation-kii iyo muxuu ahaay writing-kii iyo reading-kii muxuu ahaay ay naga saacideen oo naga kaalmeynayaan marka aad iyo aad macnaha ay u wanaagsan yihiin waan gartay marka iskuulkii maanaysa hadda maxaa isbedel aad iyo aad isbedel ayaa muuqda sababtoo ah qayb walba waxaa loo talagalay in ay waqti socoto marka tani waxay socotaa 3 bilood saddexdan bilood marka gabagabay noo tahay waxaan is leeyahay waxaan faa'iideysanay muxuu ahaay qayb muhiim ah qaybta bilowga oo muhiim ah ayaan faa'iideysanay hadda markii halkee maraysan hadda waxaan maraynaa bishii ugu dambeysay hadii Ilaahay raali ka dhigo weeyga soo socdo waxaan u fariisanaynaa imtixaan oo aan u gudbayno heerka koowaad oo muxuu ahaay istaataha ah oo aan u gudbi doono heerka labaad oo muxuu ahaay asigana elementary hadii Ilaahay raali ka dhigo bal in awood u leedahay luqadina ku hadashaan oo aan fahankeed bal ka waran aad iyo aad markaan bilaabaynay xoogaa waa nagu adkeyd la qabsigeedii laakiin hadda waxaan sameeynaa inaan galaaska aan ka hor hadalno in muxuu ahaay iskuulka oo noo qabto muxuu ahaay debates oo noo qabto maalinta arbacada oo kale oo noo qabto oo ardaydan ay ka soo qayb galaan marka isbedel weyn ayaa muuqda oo muxuu ahaay ku saabsan dhinaca hadalka magacaygu waa Aamin Xasan Faarax dhigatay iskuulka Muqdisho City College gaar ahaan qaasatan ku yaal Taleex waxaan barnaa luqadda Ingiriiska qaabkii u bartaan afar qaabad oo barnaa speaking in laga dhiso in pronunciation-ka and grammar-ka iyo macallimiinta aad iyo aad ugu qanacsanahay macallimiinta quality-gooda iyo waxtarka Soomaali kale way ku jiraan laakiin waxa u badan ajaanib Korean balfaanka luqadda wallahi dabcan soo koob kar marka hore basic iyo hore iyo hadda isku mid ma aha marka timid ilaa hadda wax oo dareentay dhanka aqoonta زائد هذه وين وحوينا اسكي بدل سو marka hore waxyaaba qaar sida hadda uu karanayo muu garaneyn awilka hore ay hadda iskuulka qalinkiisa maxaa jeceshaa wala ina heerka gaara jecel luqadda Ingiriiska oo teacher fiksina qabo hadda heerkee maraysan starta ana dhamaaraw luqadda in hadalkeeda iyo fahankeeda maadaama ay tahay luqadda Ingiriiska oo luqadda ajnabi ah oo ka waran والله هذا سلوا فيريو لأنك وفي عنتها وهذا الكذب هلا بط جامعة كان معنا هو في بنك وحبرشة وقدر قاب في عندنا دي أشخاص وحق في عنتها سواء معناها جامعة وكلا دادي أرضيات هاي لغة إنجليز كنا سكنت توقف في عنتها
waayo inaa buug diyaarsaa laga rabaa wax Soomaali ma ku baxayso luqadda Ingiriiska ku baxaysa casharada la yisiyo kale inta badan ay xoog saaraan hadalka iyo grammarka speaking iyo grammarka diiradda la saaraa هذا اللغة جرامر إنك استعاد أردت إن فهم كذا بالطور بعد إنك استعاد قادن حوجا فهم كذا هذه يعني sidoo kale waxaan wareysanay qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulka City College oo ka warbixinaya qaabka ardayda wax u bartaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin iskuulada kale oo kuwan qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulka iskuulka Muqdisho City College bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحنكو بلاوي مقعيقة نور حسن شعبان وملاه قوت مقدش سيتي كوليج مقدش سيتي كوليج وحالا أساسي بشي نوفمبر سنة دماركي لو يكون سديدي تمانكا انتان عن شقين إنه واكو دوات لح بلوت مقدش سيتي كوليج وحيوا أساسا انتهاي ومدى الصوماليات وحنا لو ديسي لونا أساسي إنه baahina ka bixino Soomaalida kuwaas oo ku dhiban luqadda Ingiriisiga Muqdisho City College waxay soo dhaweynaysaa qof walba oo baranaya luqadda Ingiriisiga waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waan gartay ustaad markaad eegto ardayda inta badan timaada iskuulkan qaabka u badan yihiin noocyada anaga waxaan qabanaa arday waliba oo u baahan luqadda Ingiriisiga haba ugu badnaatee dad u baahan speaking-ka Soomaali waxyaabaha ay ka cabato sida darteed ardayda meel walba ay ka cabanayaan waxayna kuwa u soo dhaweeya kadibna ka baahi tira waxayna u badan yihiin dadka noo imaada adults adwaaway kuwaas oo u baahan luqadda inay bartaan laakiin mar waliba Muqdisho City College uu u furan yahay dad yar iyo dad waaweyn intaba dhinaca kale markaad eegto iskuulka wuxuu uga duwan yahay iskuulada kale inta badan macallimiinta joogto macallimiin ajaanib ah maxaa ku doorateen baahida loo qabo luqadda Ingiriisiga darteed Soomaaliduna ay baahi badan u qabatay in luqadda laga dhiso waxaan mar walba isticmaalaynaa hamiga ugu wanaagsan arday aan ku baahi tiri karno taasoo ah inaynu u keenay macallimiin ajaanib aan ugu keenay dalka dibadiisa waxaan ugu keenay dartooda ah in luqadda macallimiin taqasus u leh maadaama ay ku yar yihiin dalka Soomaaliya macallimiin taqasuskooda uu sareeyo oo luqadda Ingiriisiga waxaan keenay dalka dibadiisa aan ka keenay macallimiin u diyaarsan luqadda Ingiriisiga ahna waxbarashadooda ama faculty-ga ay wax soo ka soo barteen ay taqasuska ay haystaan uu yahay taqasus Ingiriisiga sida darteed ardayda Soomaaliyeed oo imaanaysa waxay noogu imaanayaan macallimiin diyaarsan kuwaas oo u diyaarsan habka luqad loo barto intaba waan gartay in muddadii koobnayd iskuulka uu jiray ma jiraan ama hadafkii aad haasteen waa in ardayda luqadda aad ka macnaha qabtirtaan ardayda inta isbedel ma ka dareemtaan aad ma san tahay ha waxaan u asaasnay ahayd in isbedel aan sameeyno environment luqad lagu hadlay in aan abuurnay ahayd kaasoo ah aan ka gudgaarnay haddana guusheeda aan gaarnay ardayda noo joogtana waa arki kartaan waxaan haysanaa ardaydaas oo u diyaarsan luqadda Ingiriisiga mid walibana awood u leh kii ugu hooseeyay kan ugu sareeyay baadan kala garanayn inta waan diyaar u yahay markaad dhinaca kale luqadda Ingiriisiga waa luqad Soomaalida aad ugu badan tahay marka loo eego ama iskuulada hore la soo dhigi jiray idinka maxaa uga duwan tihiin iskuulada kale ku yaala Muqdisho aad u maasan tahay waxaan uga duwanahay activity-yada kala duwan maxaa yeelay waxaan leenahay class activity wax loo yaqaano iskuulka gudihiisa ama classka gudihiisa waxa lagu sameyn doonaa speaking si loo abuuro environment loogu hadlo luqad saadi maxaad uga duwan tihiin iskuulada kale ee dalka ku yaala iskuulaad kale waxaan ugu duwanahay iskuulkeena kaliya uma asaasna in 10 la bixiyo macalinku kala soo galo 10 bixiyo kaliya ma ahan iskuulkeena waxa ugu duwan yahay iskuulada kale waxaan bixino waa luqadan waxay u baahan tahay practical ardayda waxaan ugu practiceynaa classka gudihiisa si la mid ah classka dibadiisa waxaan leenahay class activity class session oo speaking ah loogu hadlo luqadda kaliya classka markii laga tago waxaan leenahay maalin ka duwan maalimada oo 10 la qaadanba maalinka arbacada oo kale waxaan qabanaa wax loo yaqaan public speaking platform oo aan ugu talgalnay ardayda inay kaliya ku hadlaan luqadda Ingiriisiga inaysan isticmaalin wax luqadooda hooya dhinaca kale markaad eegto ma jiraan waxyaabo kale marka laga hadlo luqadda Ingiriisiga iskuulka oo jecesha inaad soo kordhisan oo maaragtaan waxaan hadda bixinaa luqadda Turkiga oo aan u bixino sida aan u bixino luqadda Ingiriisiga koorsooyin kala duwan leh sidoo kale waxaan bixinaa koorsooyin gaaban sida manual accounting computerizing accounting biology and chemistry oo loo qaato qaab diploma ah sidoo kale waan rajaynaynaa faculty kala duwan iyo diplomooyin kala duwan inaan dib ugu keenno inta April kana waan gartay dhinaca kale markaad eegto iskuulka waa ardayda soo wareysanay macallimiinta waan soo aragnay
marka inta badanna waxay amaanayeen in qaabka luqadda loo dhigo oo tahay in macnaha macallimiin master haysto luqadda ingiriiska master ka haysto ay dhigaan dhinaca kale waxay noo sheegeen ardayda in macnaha iskuulka macnaha uu leeyahay activity oo dhanka luqadda in lagu hadlo ama grammarka laga dhiso marka isku soo koobto ardayda hadda macnaha marka aad dhameeyay intermediate ama qaybta oo bilowga macnaha ilaa intee gaarsiisan macnaha iskuulka gaarsiiya iskuulku wuxuu leeyahay heerar kala duwan laga bilaabo starter ilaa iyo diploma starterka oo kale waxaa ku xiga starterka 3 bilood la qaadanayo waxaa inoo xiga class loo yaqaan elementary qayb bilow asagana oo la qaadan doono 4 bilood waxaa inoo xiga class loo yaqaan intermediate asagana 4 bilood la qaadanayo advanced 4 bilood la qaadanayo class ugu dambeeyo diploma 4 bilood la qaadanayo qofka nagala imaado starter nagala bilaabo ilaa iyo diploma alayla waxaan isleenahay wuxuu gaari doonaa guush ugu weyneed oo islaha inuu gaaro taasoo ah inuu luqadda ku hadlo qori karo wax walba u baadan luqadda oo ku noqon doono qof ku takhasusay luqadda waaga inta badan Soomaali ay ka cawdaan pronunciation-ka ama ku dhawaaqista luqadda in qaabkee ma ardayda markaan taxawalan manhajka noo yaalo wuxuu u diyaarsan yahay waa manhaj Ingiriisi ah oo British ah manhajku waa manhaj British ah from UK ah wuxuuna u dhisan yahay pronunciation-ka Ingiriiska ay ku pronunciation gareynayaan ama ku dhawaaqayeen saadarteed macallimiinta noo joogtaan waa macallimiin British pronunciation sita ama dhabaqa Britishka sita saadarteed ardaydeenu waxay leeyihiin buugaag pronunciation ah kuwaas oo la dhageysanayo saadarteed qof walba oo buugaas dhageystay wuxuu ka maarmaa in uu ku hadlo ama pronunciation qaldan uu ku dhawaaqo saadarteed caqabad walba oo nagala imaaday dhanka pronunciation-ka ardaydeenu waad wareysan kartaan in badan waa ay ka dhisan yihiin intaas ugu dambeyn sababta waxaan rajaynaysaa hamiga fog waa hami aad u wanaagsan maadaama iskuulku uu dhisan yahay Soomaali loo asaasay Soomaali loo keenay Soomaali waxa hamigeenu yahay inaynu gaarno meesha ugu sareysa taasoo ah in Muqdisho City College ay noqoto Muqdisho City University absolutely waa rajada ugu weyn inay noqoto saadarteed waxa ugu weyn aan rajaynayno waxa waa inaynu noqono college-ka kaliya ee dalka iyo dibadaba loogu tago luqad English ah hadoo Ibraali kana waan gartay fariinta halkan wada ka faa'iideysan fursadda TV galmudug ku siiyay waxa fariin u diraysan shacabka Soomaaliyeed iyo ardayda jaamacadaha dhigta kuwa macaahidda dhigtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed anoo ka faa'iideysanayo fursaddan galmudug TV ayna siisay waxaan uga faa'iideynayaa bulshada Soomaaliyeed waxaad weynaysaan fursad looga faa'iideysan lahaa Muqdisho City College waxaan leeyahay come and join us nagu soo biira Muqdisho City College waa gurigiina aad kaga bogsoon lahaydeen baahida idinka haysata luqadda Ingiriisiga kaliya ma aha luqadda Ingiriisiga sidoo kale baahida idinka haysata luqadda Turkiga saadarteed bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacno furan Muqdisho City College marba waxay soo dhaweynaysaa Soomaali qof walba oo baranaya luqadda Ingiriiska iyo Turkishkana waxaan ku soo dhaweynaynaa gacno furan waxaan leenahay waxaan idin leenahay ku soo dhawaada Muqdisho City College waa baahidiina dadkii tiri lahaa soo dhawaadaan leenahay. Okay, welcome to Galamudie TV. Hi, my name's Isaac Tumwesije, senior lecturer at Mogadishu City College. I have got this opportunity to share with you about Mogadishu City College. First and foremost, I am an experienced lecturer, Masters in English Language and Literature. I have experience for more than 10 years globally, but when I talk about Somalia, I have been teaching here for 7 years, teaching Somalis. This simply verifies that I know Somali environment. When I go to handle Somali students, I know the best ways how I can handle them. Here at Mogadishu City College, I think we are the best. Why are we the best? Number one, our teaching staff is well experienced. They are international lecturers. What we teach, it's not that is something done by every person. You know, English, Africans, it's not our language. But there are some Africans like us who have got an opportunity to learn it the best, and we can as well give it to others, use it as native people. Giving you a brief highlights about Mogadishu City College, we have different levels. First, we have pre-starter level. Second, we have starter level.
then we have elementary, then intermediate, then from intermediate we have advanced level, then lastly it's diploma. By the way, Somalis, Mogadishu City College is the right place to go to. Do you know why? Most Somalis outside there, today their need is English language. And a big number, they don't know English. They are battling, fighting to understand English direct. Most of them, they translate from Somali, then come to English, then go back to Somali, then English. That's a confusion. But here at Mogadishu City College, we can help you to understand English language direct. English to English, not English to Somali. When you are there, you are scratching your head, you want to learn English perfectly, please come to Mogadishu City College. Those who don't know how to write, come. Those who don't know how to speak, come. There are some Somalis who don't know even how to respond when you say, how are you? Some you ask, what's your name? They say, I am Afgoy. They forget that you're asking a name. They just name where they live. Simply means their understanding about the language is very little. Some have actually got disappointed. Some Somali students, they got some colleges, after attending 1 month, 2 months, they stop, they drop out. Why? They fail to understand the lecturers. They fail to understand the lessons. Why? Because at a time, their lessons are not simplified. But here at Mogadishu City College, our lessons are simplified in the simplest language of English, where you can understand fully. This level of pre-starter is the best for those who don't know anything. As you come, when your head is completely everywhere somehow, you can learn some few words, beginning from how are you, what is your name, where are you from, etc. as you grow the language. These levels are put in place to make sure that a student who completes at Mogadishu City College is a best product. And I can assure you, come and test. Here at Mogadishu, 1 month is equivalent to 1 year learning English language. If you doubt, come and test. You may say, this person is just advertising. Really, I'm not advertising, but I'm telling the facts. And I love Somalis. Why? They like facts. They don't like too much words without action. Come and test actions at Mogadishu City College. One, the relationship that we have with our students and administration is paramount. When we are teaching, we try to make the students very close or friendly to us so that they can get confidence to express what they feel. It doesn't give good environment to a student when there is a bridge between a teacher and a student. Once a student comes and finds that bridge, then the connection will be poor. As you teach, that distance will try to bring some challenges between you and the student to understand the language. But here, we try to do our level best and make sure that a student looks at you as a friend. So as you teach, it is fun actually. It brings some joy and happiness. I can assure you that Mogadishu City, it's a new college, but new college by name, just by name. But by action and activities that are done at Mogadishu City College, really they bring a picture that it has been in existence for 10 years and above. But it's not true. I want to tell you something small. Me personally, as I told you before, I have taught Somali students. I know their problems. I know their ability. I know their strength. Not only me, with other staffs. Now, take an example. If a doctor examines and finds the disease that is disturbing you, can doctor fail to
provide medicine for you? Absolutely not. Because has discovered a problem. Most of the institutions, they might not find the proper problem that is challenging our students in Somalia. Actually, I may cite as the biggest challenge. But for us here in Mogadishu City, when you come, we give you an interview. The interview purposely is to examine your ability and your strengths and see how best we can help you to learn this language very well. I'm here. Really, I'm an African gentleman. But I speak English like a native. If I can, and an African, how about you? I'm not different from you. You too, you can learn it and be the best way. But I want to assure you that if you choose the right place, you do the right thing in that right place, and at the right time, it's possible to get what you want. But in most cases, students, they go in the wrong places. Just like if you want to do shopping, you go to the restaurant. Can you buy anything from the restaurant? Can you buy a shirt from restaurant? Some students, instead of going to the shopping malls, they go to the restaurants. So please come here and shop English language. Writing is here. Speaking is here. Reading is here. Listening is here. We don't concentrate on one skill of the language, but we concentrate on all 4 skills because they work together. When you know how to speak, it's good to know how to write. Because I travel, these people who are good at traveling, and I know Somalis are travelers. They like to travel every other time. So you reach at the airport, they give you a form to fill. You find nationality, then you write Bakuli. Now, nationality, Bakuli, are they connected? Because you don't understand. You can speak, people understand. But when they give a paper to fill, what you feel are totally different. Why are you challenged with writing skills? And Mogadishu has brought solution for that. Why don't you come and join Mogadishu City College? Lastly, in English, there is a statement. It says, we don't own time, but we use it. And we don't keep time, but we spend it. It says again that you are the controller or you are the pilot of time. The question comes, how do you pilot your time? This is the right time to come and learn English language at Mogadishu City College. Once you miss this chance, tomorrow you may regret. Shall I? You begin to say, oh, I lost an opportunity. Or sometime back, I wish I had. When you begin such statements, it will be too late for you. Please, Somalis out there, all corners of Mogadishu, Mogadishu is the only place around Mogadishu that you can go and learn English language perfectly in all 4 skills of the language. Thank you so much for viewing. Thank you so much for listening. And I hope you are not just listening, but you put in action. Assalamu alaikum. haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxbarashada isbuucan intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono toddobaadyada dambe sidaas iyo nabaadiino macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa